kulanti wacan daawadayaal halkani waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee geyiga Soomaalida qodobada xilligan aan udiin haynana waxaa ka mid noqonaya abaabul ciidan oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ka soconaya magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo ka hor yimid qorshaha Saciid Dani iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolada Soomaaliya xilli ciidamo ka tirsan dowladda Itoobiya ay ka soo gudbeen xadka dhanka gobolka Gado qodobadaasi ayaa daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waxaanu ka codsanaynaa haddii aad channelkan ku cusub tahay ugu horeyn inaad subscribe inoo saarto adigoo muuqaalkan la wadaagaya saaxiibada waa hagaag ugu horeyntii haddii aynu ku bilowno abaabul ciidan oo ka soconaya magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq ciidan oo loogu diyaar garoobayo guluf ka dhan ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab maamulka Jubbaland ayaa waxa uu doonayaa in uu ku biiro howlgallada ka soconaya qaybo ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo ujeedkoodu yahay in al-shabaab laga saaro qaybaha ay maamulaan dalka saraakiisha ciidanka Jubbaland ayaa waxay abaabul iyo diyaar garow ciidan ka bilaabeen xeryaha ku yaala duleedyada magaalada Kismaayo oo ah caasimadda dowlad goboleedka Jubbaland ee ku meel gaarka ah saraakiisha ayaa waxay kormeereen xeryaha ciidanka daraawiishta iyagoona ciidamada ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan sidii guluf midaysan loogu qaadi lahaa dagaalamayaasha al-shabaab General Ismaaciil Saxardiid Kaydsan oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan howlgallada uu yoolkoodu yahay in lagu wiiqo tabarta al-shabaab waad ogtihiin dalka Soomaaliya waxa ka socda maanta dadkii shacabka ahaa ayaa waxa ay go'aansadeen inay iska dulqaadaan cadawga ummadda Soomaaliyeed ee al-shabaab annagana wixii hadda ka dambeeya dhufaysyada aad ku jirtaan muddada dheer ee 8 sano ku dhow kuma sii jiri doontaan insha Allah waan kacaynaa dhufayskana waan ka baxaynaa goobaha ay joogaan iyo meelaha ay naga soo weerarayaan ayaan aadaynaa ayuu yiri General Ismaaciil Saxardiid General Kaydsan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu yiri waxaan haysanaa dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo isku xiran gacmo wada jir bay wax ku gooyaan maanta waan is haysanaa oo istaageeraynaa baahida aad qabteenna waanu soo qabtiraynaa ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska Jubbaland General Maxamed Sheekh Cabdi Xujaali ayaa isna dhankiisa hadlay waxaana uu yiri howlaha dhaqaaqay aad arkaysaan ee dabaysha ah ee meel walba ka dhaqaaqay ee sifaynta cadawga ah ayaa la galayaa waxaad sugayseen oo maanta wax idinkaga farxad badan ma jiro in la idin yiraahdo berri jamaama ayaa la tagayaa ama xagar ama waxa la qabanayaa jilib wax idinkaga farxad badan inaysan jirin waan ogahay waa waxa aad sugayseen wixii la sugaba marbay dhacaane ilaahay baa ku mahadsan waana xaqiijin doonaa waxa taagan ee dhaqaaqi lahaa sidii ay u dhaqaaqi lahaayeen xaqiijinteeda ayaan iminka ku jirnaa dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa isna shir gudoomiyay kulan ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada kaasi oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland ee magaalada Kismaayo kulankaasi ayaa ujeedkiisu ahaa isla markaana diiradda lagu saaray howlgallada looga saaray al-shabaab deegaanada ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland waxaana abaabulkii ugu dambeeyay iminka uu ka soconaya magaalada Kismaayo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland dowlad goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe ayaa ka mid ah dowlad goboleedyada aanan ka arrimin dhulka ay ku magacaaban yihiin waxaana kaliya uu maamulaa dowlad goboleedkani magaalooyin kooban oo ay Kismaayo iyo Dhobley ka mid yihiin gobolka Gado ayaa ka maqan gacanta maamulka Jubbaland waxaana ka arrimiya maamul gooni isu taag ah oo ay markii hore magacaawday dowladii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gobolka Jubbada Dhexe oo isna ay ku taalo caasimadda rasmiga ah ee maamulka Jubbaland ayaa si buuxda kaga maqan gacanta maamulkaasi waxaana si buuxda uga arrimiya dagaalamayaasha ururka al-shabaab dhanka kalena ciidamo Itoobiyaan ah ayaa waxa ay ka soo gudbeen xadka dhanka gobolka Gado uu la wadaago dowladda Itoobiya gawaarida ciidanka daabula ee uraalada loo yaqaano ayay ciidamada Itoobiyaanka adeegsadaan ayaa waxa ay ka soo gudbeen xuduudda uu dalkaasi la wadaago dhanka gobolka Gado ee Soomaaliya boqolaal ka mid ah ciidamada Itoobiya ayaa ka soo gudbay xadka ay wadaagaan labada dal gaar ahaan dhinaca degmada Doolow ee gobolka Gado kuwaasi oo ujeedkoodu yahay inay ka qayb galaan duulaan ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Gado gudoomiyaha degmada Doolow ayaa waxa uu soo dhaweeyay ciidankan Itoobiyaanka ah kadib markii ay maalmihii u dambeeyay ka soo baxayeen xogo sheegaya in al-shabaab ay dhaqdhaqaaq xooggan ka wadaan gudaha gobolka Gado ilaa deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya
Itoobiya ayaa dhowaan sheegtay in ay la dagaalamayso kooxda Al-Shabaab oo ay ku eedeysay in ay xiriir hoose la leeyihiin kooxaha argagixiso oo ka soo horjeeda ammaanka dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay jabhadda TPLF oo dagaal ka dhan ah dowladda Itoobiya ka wada dhulka ay degaan. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa waxa uu ka hor yimid qorshe muhiim ah oo u degsanaa madaxweynaha Puntland Siciid Deni. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa waxa uu iska fogeeyay sababta loo magacaabay inay qayb ka tahay muddo kororsi lagu eedeynayo in uu qorsheynayo madaxweynaha Puntland Siciid Deni. Wasiir Juxa ayaa sheegay in uu xafiiska u yimid sidii uu u dhaqaajin lahaa doorashooyinka golayaasha deegaanka ee nidaamka axsaabta badan kalsoonina loogu abuuri lahaa dadka shacabka ah iyo ururada siyaasadeed ee Puntland ka jira. Ku darsasho wax la yiraahdo oo miiska saarani ma jirto, dowladana wax gaar ah oo dan ah ka sokow inuu barnaamijkan hirgalo mooye ma jirto. Juxana taas qayb kama ahan ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland mar uu hadlayay. Wasiir Juxa waxa uu ugu baaqay siyaasiyiinta Puntland ee diidan nidaamka dimuqraadiyadda inay bulshada hor yimaadaan isla markaana ay u diyaar garoobaan inay bulshada cod weydiistaan. Wasiirku waxa uu tilmaamay qorshaha hadda socda oo miiska saaranay inuu ka kooban yahay doorashooyinka dowladaha hoose. Waxa uuna sheegay doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha in waqtigooda lagu qabanayo isla markaana la sugo. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa bishii aynu ka soo gudubnay waxa uu Juxa u magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Puntland. Juxa waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya nidaamka dimuqraadiyadda, waxa uuna hormuud u noqon doonaa doorashada 12 degmo oo maamulka Puntland uu qorsheynayo in laga qabto doorashada dadweyne ka hor sanadka 2024. Guud ahaan daawadayaal, waxaan halkaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii ugu dambeeyay oo aad kala socoteen barteena YouTube-ka ee Halbeegga Wararka. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe inoo saar channelkeena YouTube-ka adigoo muuqaalkan la wadaagaya saaxiibada. Intaan barnaamij wareedkan kiisa xiga dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo, amaana Allah.